yay ku dhaarsan yihiin yay ku dhaarsan yihiin kuwa dhaxan qabow iyo dhamacda kulul wejigow dhigow nagu dheerida wejigow dhigow nagu dheerida yay ku dhaarsan yihiin yay ku dhaarsan yihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والإسلام إسلام كواجب مركز لبعض وحنك الله يا أرمها تشجعان تاي كودان سولي السنة يعين خاصهان أي قولا كودان كرهان أي كودان تمام با تجمع دارات كودو وايو هدي صور القبصة دارات رم الله جايستا هدي برا الله قبصة نساء رم الله جايستا تامر كان كجود نما كان أنا دين توما نقدر حس وحنا نقدر حياة متشران وحس منهن ولقي ونسترجرني ولقينا وندل جري ونكاد كين كلا تاريخنا ما كوانا سبنا راعي كرنا تاريخي ذا كبلعبتها إلى خلافة ذا كبلعبتها ينتي إلى عباسيين تبى كبلعبتها إلى أحمد كري إلى سيدكي إلى محمد سياد بره إلى ما أنتم اللي تاجين وصل يسن منه حلقن قميصديد يو كرتي يو أحوال على شيوك بالنمو يجنا تودو حكبلعبتها قوي سجاشن كي بالخدت كجايدون كبرعة كله وحكسو بحياة waxaa soo baxaya gobolaha wadiya youtube kaga waxaa soo baxaya qof 90kii iyo asram oo ku salaysan waa la dilay waana la gumeystay diinkan diin muslim islaamadu labadaan wax ma yeelan karaan si isku aragti ma yihiin isku aqli ma yihiin isku film ma yihiin taariikhdana adduunku wax laga faana waxa jira qofka markii la gumeystay adduunyada dhan baa la gumeysan jiray gaar ahaanba ingiriiska gumeysan jiray badankooda Ethiopia ka jartay waa laga jaraa Soomaalida waxay dhaqan u leedahay nin kasta oo Soomaalida wuxuu yaqaanaa inuu soo adeeg yahay waayo awooyaashii waxay u sheekayaan inta jeeray guuleysteen inta iyaga laga guuleystay looma sheego Soomaalida waa dhaqan Soomaalida waxay taasuna ku cadeynaysaa nimankanu inay Soomaali ahayn marka labaad nimankanu ma diidana Soomaaliya waxay diidan yihiin daarood bidiidan waxay doonayaan maanta Soomaaliya sanaga ayna waa daarood ma arki karo dhulkiisa waa rabaa isaga waan rabaa balabadaas ma isqaban karaan baloo gornoqo ma isqaban karaan takale ninkii nimanku uxid ma gelin badarna ma gelin meel kastana waxay la taagan yihiin nin ama madaxweyne isku sheegaya ama wasiir isku sheegaya ama nabadoon isku sheegaya ama ninkii dhiigga daarood ka qayb qaatay ama dilay ama ugu faraad u dhumna ama ku dheereeyay waxay u bixiyaan mujaahidkuna dad islaam dhexdiisa ma taalo mujaahid laakiin muslimku wax badan bisku yimaado oo kale ma ay kala bixiya nin aad ula baxday ninkii ku dilay ula baxay mujaahid oo adigana kula iraac rubaanta waa daarood siba colaadii markii Soomaaliyada ay kala tagtay waxa daarood ka baxay waqooyiga waxa ku hadhay dhibaato iyo xabada iyo aad dhibku u gaadhay wuxuu ahaa beelaha dhulmaante ninkasta noo galay maanta waxa la bixin mujaahid waxayna ku leeyihiin aan israacano waxna waa yeelano taasuna ma aha wax aqligu gali karo ama qof miir qaba oo ku hadlo takale ninkan Muuse Jaahil ee meeshan kale nabad intuu ciidankiisa ka soo kaxeeyay 500 kilomitir oo gorow duloobay uu leeyahay nabad baan ku baaqaya cid kasta oo daris wanaag wuxuu la mid yahay ninkii wallahi biyaha kulul dhakada iskaga shubay soo la soconayo dhakada iskaga shubay ilaahay bariya uu leeyahay ilaahay qabooji ninkaas la mid yahay waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliya sanaag yacintiga dadkooda jooga Hargeysa way khiyaameeyeen wayna dulmiyeen wayna lugooyeen wayna dileen iyo u arkin dad iyaga ah ama ka soo jeeda ama la dhiiga ama la dhaqana oo arkeen inay yihiin sheegaanta oo arkeen falaysa minna annaga waa mid ahaa waxay naga mid yihiin nimankaana waxba ma wada yeelan karno isku aragtina manihin aragtida iyagu waxay doonayaan Soomaaliya inay kala goodo inay gumeysiga tiisi hirgeliyaan dabada laga riixayaa annaguna waxaan doonaynaa sida aanu caadada noo ahayd ama dhaqan aanu lahayn inaanu mideyno dalka muslimka iyo dalka Soomaalida iyo caalamkaba ingiriiski oo qobilaad sano la dagaalamayay oo dalkaan ka saarnay oo cadaanka ah oo markaan dawladii jiray ee gaalada ah uu teetal sirri oo aan ka saarnay qarnigii 18aad wadanka
maanta ko ilaa tan la joogo raadkiisi meeshuu maray inaanu yeelina ma idin la tahay la muslim baan dhageysanayo la maqlayo idinku taas kuna wax la yaabo weey takalana waxaan leeyahay beelahan sheeganta mooyaane beelaha kale ee Soomaaliland ee wax garadka ah daanu ma boqon ba sheeganta iyo waxaan taariikhdooda waan hayaa iskaar ahaanba beelahan in habar yoonis ama sigar xajis wali ma arag wax ka hadlaya waxaan kama duwan ma arag markii iyaga lagu ciiray bay maanta meel walba ka hadleen kal shaala dhacday weligood ba nimankan waxay ahaayeen daalin dulmina way wadeen marnaba anagu maan duulin marnaba waxa ku cadeynaysa waxa lagu dagaalamay xargiga waxa lagu dagaalamay anigu aan tago qur'aanood waxa lagu dagaalamay buuhoodle waxa lagu dagaalamay heegaale waxa lagu dagaalamay sirraweyn waxa lagu dagaalamay jiidali waxa la isku dilay higlada meesha la yiraahdo ama jibarka ama tagodaadka ama qoritaag biloo yaqaan waxa la isku dilay xudun waxa la isku haystaa maanta waxa la isku karraq taas waxay ku cadeynaysaa inaan mar walba anigu aan liigu soo duulay anigu aan difaacaha iyaguna dulmiga iyo gadarrada iyo maantana waxaan yeelanaa maaha waxaan dul qaadanaynaa maaha waa noo kala dhamaatay dadka ku dhow dadka jooga burco hargeysa iyo berbere ee shacabka ah wax si kastaba u joogeen waxaan leeyahay soo gala soo naxaroodo waa la kala go'ay xadkuna waa xidhmaya xadkaanu xaq u lahayn ee annaga iyo ingiriisku aanu kala dhiganay wuxuu ku yaalaa labada gaatama xad kalena annaga iyo isaaq noo dhiga